بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسولو 10 كيني شين لواتنات Microsoft SQL Server 2017 kaasoo aan ku soo qaadan doono habka magaca looga bedelo database, table iyo column iyadoo waliba la isticmaalayo query ayaynu 10 keena ku soo qaadan doonaa. Hadda markaanu nimaadno Microsoft SQL Management Studio aynu soo furano new query si aynu 10 keena practical u qaadano. Marka query-gan inoo soo furmo waxaynu qoraynaa si uu database keeni halkan noogu soo saaro use ProDB oo ah database keena magaciisa. kadibna go aynu leenahay sidaas aynu ku isku gareynaa ff ku taaban command complete body halkan waad aragtaa inuu database keena inoo doormay hadaba aynu sida eegno magacyada inoogu yaala database keena iyo tables keena. Database keena waxaa la yiraahdaa ProDB. labada table aynu casharadeenna hore ku soo qaadanayna waxaa la kala yiraahdaa TPL department iyo TPL employee. kadib labada table ba magacyadooda ku bedelinaa kasar waxaanu bixinaa department oo kaliya kan kalena waxaanu bixinaa employee oo labada TPL uu ka jarayna. database keena waxaanu bixinaa shida group. kadibna aynu bilaab ugu horeyna inuu database keena magaca ka bedelno inagoo qorayna database kadibna database keena magaciisa oo ahaa ProDB. kadib waxaan leenahay modify kadib waxaanu ku xigsiinaynaa name equal magacu ha noqdo waynu leenahay shida group. sidaas ayaynu ku execute gareynaa. kadib waxa uu leeyahay the database name shida group has been set. sidaas ayaynu ku bedelay magacii oo loogu bedelay shida group. kadibna database keena refresh u dirno. kadibna waad aragtaan database keeni laga dhigay shida group oo ah ka aynu halka ku qornay marka. hadaba hadaynu expand siino tables keena eegno waxaad arkaysaa inuu qoran yihiin TPL department iyo TPL employee labadoodaba aynu magaca ka bedelno. halkan ayaa waxaanu ku qoraynaa sp_rename kadib waxaanu ku xigsiinaa laba single quotation table-ka aynu magaca ka bedelayna aynu ku qoraynaa oo ah TPL department. hakad baynu leenahay laba single quotation oo kale ayaynu qoraynaa waxaanu halkan ku dhex qoraynaa marka magaca cusub ee aynu table-keena u bixinayno oo ah department. sidaas ayaynu ku execute gareynaa query-gan. hadaba TPL department si ay isagana magaca laga bedelay oo loogu bedelay department kaliya aanu tables-ka oo kaliya bal refresh u dirnaa iyagana saynu magaca u aragno wadaagtaan halkan table-keeni loo bixiyay department sida aynu halkan ku qornay. table-keena kalena select aynu magaca ka bedelnay isagana inaga oo tan laga qorayna sp_rename labada single quotation man furana haddana waxaanu dhex gelinaa marka TPL employee oo ah magacii hore aynu doonayno bedelno. hakad baynu leenahay magacii cusub ayaynu isagana laba single quotation dhex gelinaa oo ah employee. sidaas aynu isagana ku ran garaynaynaa isna guud ahaan sidaas ayaa laga bedelay. mar labaad ayaan tables-ka u tagayaa refresh baan leeyahay sidaas ayna TPL laga saaray oo loogu qoray employee sida aynu halkan ku xusnay. hadaba saynu column magaca uga bedelno aynu soo dhigno table-keena employee columns-keena oo kaydsan kadibna saan ku ran garayno saynu hadaba casharadeenna hore ku soo qaadeen shantan column ayaynu u kaydsan table-keena employee ah aynu magaca ka bedelnay. kadibna laba column aynu practical-keena ku qaadanaynaa. salary-gan ayaa waxaanu ku qoraynaa payment halkan department ID-gana waxaan ku qoraynaa dip ID kaliya. saynu soo sameeyno halkan sare aynu tagno kana aan hoos u dejiyo. hadaba saynu column-ka magaca uga bedelno waxaanu qoraynaa sp_rename kadib labadii single quotation man furaynaa waxaanu dhex gelinaynaa column-kan aynu magaca ka bedelnaa table-ku ka tirsan yahay oo ah employee. baynu leenahay column-kiisa baynu leenahay salary hakad baynu leenahay laba single quotation ayaynu dhex gelaynaa markaa erigii payment ahaa oo aynu doonayno inaynu magaca ku bedelno markaa. kadib query-gan sidaas ayaynu ku execute garaynaa. sidaas ayaa magaciisana lagu bedelay bal mar labadan soo display gareeyo markaa table-keena employee ahaa ee markaan magaca ka bedelnay. hadaba halkan waxaad ku aragtaan in column-kii salary ahaa lagu bedelay payment sidaan halkan ku xusnay. column-kan kale department ID-gana waxaan ku qoranaa dip ID sidaas la mid ah isagana halkan ayaynu tagnaa waxaanu leenahay sp_rename laba single quotation ayaynu furanaa sidoo kale waxaanu qoranaa markaa table-keena employee department ID baynu leenahay hakad baynu leenahay sidoo kale laba single quotation kale ayaynu furanaa marka waxaanu dhex gelaynaa magaceena ku bedelaynay oo ah dip ID saas ayaynu ku ran garaynaa isagana. marka aan soo display gareeyo table-keeni hadaba employee ahaa halkan hadaba isna waxaad ku aragtaan in department ID laga bedelay magaca oo loogu qoray dip ID sida aynu halkan ku qornay. si la mid ah haddii aad doonayso database-keena graphic ahaan kaga bedesho magaca database-keena dul tagaysaa right click ayaad leedahay kadibna option-ka rename ayaad halkan ka dooranaysaa magaca sidaas ayaad ugu bedeli kartaa. tables-kuna waa saas la mid ah right click dushooda ayaad siinaysaa halkan rename ku qoran tahay iyadina tagi kartaa oo hadda doonayso graphic ahaan sidaas ayaad ugu bedelaysaa. halkaas ayaynu joogay casharkeeni gaabna ayaynu ku baranaynay habka magaca loogu bedelo database-ka table-ka iyo column-ka intaba. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.